sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo isna qoraal soo dhigay baraha internetka uu ka isticmaalo ayaa waxa uu yiri waxaan ugu baaqayaa dhammaan madaxda qaranka in la isku duubto sidii loo badbaadin lahaa lagana fogaado khilaaf kasta oo horseedi kara in gacmaheena aan ku burburino geedi socodkii loogu jiray dawladnimada Soomaaliya iyadoo amaanka lagu hayo dadaalkii dheeraa ee naf iyo maalba lahaa ee loo soo maray in dib loo yageeleelo dawladnimada Soomaaliya waxaan ka digayaa go'aan kasta oo si qaldan loo gaaro khilaafka maanta u dhaxeeya madaxda qaranka anigu waxa aan ku talinayaa in madaxdu ay ka fiirsadaan isla markaana dib loogu laabto dastuurka iyo sidoo kale xeer hoosaadka qaranka si loo badbaadiyo dawladnimada Soomaaliya ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed si kastaba ha ahaatee waxa ay soo taraya baaqyada loo jeedinayo madaxda ugu sareysa dalka iyo xubnaha ishaya ee golaha shacabka oo ku aadan in ay badbaadiyaan jiritaanka golaha shacabka Soomaaliya oo muhiim u ah dawladnimada Soomaaliya sidoo kalena waxa dhibaatooyinka iyo xiisadaha isdiidan ee ka jira golaha shacabka isha ku haya si dhowna ula socda xubnaha beesha caalamka waxaana suurtagal ah in talada ay ka wareegto gacanta Soomaalida sida laga dhadhansan karo wararka madaxdan horay u soo maamulay dalka ay ka qoreen arintani